marka bahalka jeebkiina uma fiicna, cimrigiina uma fiicna, cilmigiina uma fiicna, caruurtiina uma fiicna. dee waxa la yaab kale waa waxay tahay ku cajabiye iyo ku caawiye inay ku jiraan halka sano ugu horeeya, ku ciile iyo ku curyaamiyana maalintaas aad bilaabaysid oo aada ka baxayn noloshaadu ha ku furata. ilaahay idinkuma dilo. nasiib darradu halka ay ka dhacdayna waxa weeye dhibkiisa iyo xanuunkiisa maalinka aad dareemaysid waa maalin uu ku dilay oo aysan wax ka qabasho lahayn. waxaan arkaysaa maalmaha kan dambe raggii cuni jiray waa qaylinayaan, wallaahi hadalla kulul baa ka soo dhacayo, hadalla qaraar baa ka soo dhacaya oo aan loo dulqaadan karinin. marka waxaad dareemaysaa bahalku effect weyn inuu lahaa haddii uu ku daayo asigu iyo haddii aad daysid baa adag oo waxaad dareemaysaa inaa wax maaragta laakiin marka uu ku daayo asigu run ahaantii uma leexsanid saaxiib. السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan guud ahaan salaamayaa bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa isfahan brosom ku xiran, kasii gaar ahaan 3 nin. waa muqayil, waa mawlici, waa muqawad. niman yahow sida aad u egtihiinba ama aad ula socotaanba jaadku waa 4 nooc. waa ku cajabiye, waa ku caawiye, waa ku ciile iyo ku curyaamiye. maalmaha koowaad oo aad bilowdid bahalku waa ku cajabiye oo adigoo dhan cirkaa maraysaa oo calooshaad furaysaa oo xitaa kii aad islayseen baad cafinaysaa oo waxa weeye waad heli kartaa oo qof kastaa ka heli kartaa. marka waa ku cajabiye oo dhibtiisa ma arkaysid. waa ku caawiye oo shaqo culus baa laga yaabaa inaad qabanaysay oo inuu la falgalaa laga yaabaa oo inuu ku caawinayaad u qabtaayo sidoo kaleeta cirkaad maraysaa oo daali maysid oo seexan maysid, way kaa jaran tahay. laakiin xilligaas waa ku caawiye. waa ku ciile oo waxa weeye maraka nin weyn baad noqotay, reere iyo carruur inaad yeelatay baa laga yaabaa, ma heli kartid lacagtiisii baa laga yaabaa. maalin kasta waxaad arkaysaa qayrkaa oo lugaha isa saartay, calool xumaad dareemaysaa, meheraduhu kuma celin karaan, xaafaduhu kuma celin karaan. waxa weeye maclaa xaajiyaddu waxaa laga yaabaa inay gas kuu siiso kaa caro dhaqiiqa kaa biibaya markay aragto. marka waxaad ku jirtaa intaan kowda la gaarin anaa meelun ka keeniye caawa kiila isii kiila uni amaahe. marka waa ku ciile oo waad ciilan tahay. haddii aad soo heshidna dhibkaagii baa kuu sii kordhayo intii yaraydoo aad subixi carruurta caanahooda dooni lahaydna cara iyo qaadire ama hurdaad ku jirtaa. waa ku curyaamiye, waad weynaatay marakan macalaa carruurtaadii way waaweynaadeen, caqli bay yeesheen maantayto. waxaa weeye adigii si fiican u kala garan maysid. halkaasay soo istaagasayo iyadoo laga yaabo dhar jeexjeexan inay qabto, markaasaad leedahay naya maxaad aabba waxbane dharna ma haysto. aabbahaaga maahane bax oo idhaaf. waxa uu ka ogyahay male ma ogtahay ilmihiisii. marka waxaa weeye ku curyaamiye oo horumar ma lihid, mustaqbal ma lihid. fikirkaaga dhan waxaa weeye inta aad ka soo helaysid waxaa kuu sawiran meeshii aad la fadhiisan lahayd. markaad la fadhiisatid intaa yartaa kadib waa dhammaatay, noloshaadiina saasay ku socotaa. sanadka kaa tegayna kuu soo noqon mayo. marka saaxiibadayda qaaliga iyo walaalahaygow, anuu wallaahi waan ku faraxsanahay in la joojiyo. muqayil ma ahi, laakiin hadda ka hor wax waa aan soo taataabtay dhibkiisana maaragtay bilow iyo gadaalba waa joogaa. dee waxa la yaab kale waa waxay tahay ku cajabiye iyo ku caawiye inay ku jiraan halka sano ugu horeeya, ku ciile iyo ku curyaamiyana maalintaas aad bilaabaysid oo aada ka baxayn noloshaadu ha ku furata. ilaahay idinkuma dilo. hadduu hadda idinka joogsaday
ilmihiina faatixada saa u bari lahaydeen bilaaba. waxaa weeye idinka laftirkiinu qalbiga furtoo qur-aanka iyo tafsiirkiisa iyo maashaa allah. waxaa weeye wax isku daydaya saaxiibayaal, isku daya inaa horumar kaleeta samaysaan oo caadi xataa business adigu leedahay maaragtay. dukaan reerood lama saarnaan kare, mid adigu leedahay u furan lahayd maaragtay. isku day saaxiib, bulshadaada iyo khayrka iyo wanaagga saa uga faa'iideyn lahayd maaragtay. isku day saaxiib, ha ku milmin dhibaatooyinka iyo waxyaabahan adduunka ka socda. naftaada mas-uuliyaddeeda aduunbay ku saaran tahay. qof kaleetoo lagula xisaabinaya ama qabriga kula gelayana ma jiro. marka yaana ku dheeraan kiiska. laakiin saaxiibadayda qaadka maantayta xilli aa ku fikirtaan baa haysataan, jeebkiina waa ka dareemaysaan. inkastoo covid-19 ay isla socdeen oo dartiisa u joogsaday, haddana idinkoo covidka ku jiray imagine haddaa qaadka cuni lahaydeen. ka fakar maantayto dhib baa wallaahi inay haysan lahaaba laga yaaba walaalayaal. marka bahalka jeebkiina uma fiicna, cimrigiina uma fiicna, cilmigiina uma fiicna, caruurtiina uma fiicna, culimo iyo caamo toonana maaragtay kaas wax ma u tarayo. marka walaalahayga qaaliga, waa naseexo, waa farxad, waa qalbi wanaagsan baan idinku soo diray bahasha. iska joojiya bahalku, faa'iido male. maanta hadduu idin daayey jaadku, marka haddii uu ku daayo asigu iyo haddii aad daysid baa adag oo waxaad dareemaysaa inaa wax maaragta laakiin marka uu ku daayo asigu, run ahaantii uma leecsanid saaxiib maaragtay, uma leecsanid. asiga ku daayay tariibka kan daa adiguna hala gaarinba marka uu soo noqdo inaad cuntid walaalahayo. wallaahi faa'iido ma lahan noloshaada, horumarkaaga, qoyskaaga. waxaa arkaysaa maalmaha kan dambe raggii cuni jiray waa qaylinayaan wallaahi. hadalla kulul baa ka soo dhacayo, hadalla qaraar baa ka soo dhacaya oo aan loo dulqaadan karinin. marka waxaad dareemaysaa bahalku effect weyn inuu lahaa. dhibkiisa iyo xanuunkiisa maalinka aad dareemaysa nasiib darradu halka ay ka dhacdayna waxaa weeye dhibkiisa iyo xanuunkiisa maalinka aad dareemaysid waa maalin uu ku dilay oo aysan wax ka qabasho lahayn. marka walaalay maalinka uu ku dilay maaragtay shalayta waxba kuu tari maysee maantay taa wax ka qabasho leedahay. dheehaaga, quruxdaada, dhallinyaronimadaada wax kasta socdaan yaa ka faa'iidaysa walaalkay. iska jooji adigu, asigaaba ku joojiyey, ha ku noqonin mar kale. damiirkaaga u diid iyo raganimadaada, raadso meel kaloo ay isku ciriiridid oo wax kaaga soo baxayaan faa'iida leh. intaa waxaa sii dheer waa gororaysaa. gororku waa u dheeryahay ragga qaar hadday gaareen iyo haddayse gaarinba kolla haddii la isla qiray yaa adeer, ama gaar ama ha gaarin, kolla gororkaasna waa jiraa. cimrigaaga ilaahayow rabbiyow ka nabadgeli baan oran lahaa. fool xumaa bahalku waa nahay. war joojiya jaadka, khayr allah idin siiya. shekeeti ducadiisu inay idinku dhacdo joojiya idama liikiisa.